بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدوميها قلها شعبكم مدنة شيخ آدم محمد نور آدي أيو محسن سلام كجدال يمات علين ولا ريال عو كلا وشرف وينه كم هاد علين يا حلبان هذا شرفت له كسر قيب قلها عشر رين يا فرحة يدبال دق معهن واسيدا وشيء قدوميها حالة عد أدق أو كلول أيام دلكين يدكين ما تسوي وجهي Soomaaliyana iyo Soomaaliduna in badan xaalada cad adag way soo mareen kuwa kale oo ka sii cad adagna Ilaaha uga turay oo aanan soo qaabilseenin laakiin kuwa aan anagu ama gacmaha soo geysan ama aan sabab u ahayn ayaan soo marnay alxamdulillah in badan oo dhibaatooyinkaas kamid ah waa ka soo samata baxnay waa ka nabadnimiday xaaladda guud ahaan dalka maanta meesha ay marayso aad iyo aad ay u wanaagsan tahay horumarka ummadda Soomaaliyeed ay ku higsanayso wax badan oo kamid ah tallaabooyinka loo qaaday dhinacaas aad iyo aad ay u dheereeyaan qurux badan hase yeeshee sida gudoomiyuhu sheegay habeenku wuxuu ugu mugdi badan yahay la yiraahdo marka waagu uu soo dhawaado waxyaabaha aan arkayna maanta waxa ay ku saabsan yihiin marka inaas xigmadahaas ay dugsan yihiin dalka muddo 2 sano ku dhawaad ah dagaal ayuu ku jiraa cadawga ummadda Soomaaliyeed oo nimanka khawaarijta ah ayuu dagaal kula jiraa dalkeena Soomaaliya iyo dadkiisa guulo la taaban karo ayaan ayaa laga soo hooyay maanta dhul dhan oo shalay aan xor ahayn ayaa xor ah nabad lagu maraa dhulkaas wuxuu ku xoroobay oo dadka Soomaaliyeed ku nool dhulkaas maanta ay xor ku yihiin kuwa kalena ay ku shinsanayaan waa dhiigga geesiyaasha wiilasha geesiyaasha ah ee Soomaaliyeed oo ay ugu dambeeyeen kuwii uu kamid ahaa sarkaalkeenii Suulnuuge oo ahaa geesi Soomaaliyeed oo la wada ciidankana laga dhex yaqaana dadka Soomaaliyeedna ay yaqaanaan الله ونحرسه جندي فردوسنا الله جيان لنا انت كدب ولا ليال ظروفها ان صومرني انت بدن وحيابا ان كسو كبنين اي هاي وان صومرني عذره يشبن بيوت يضاعون يدباتي جرتو وان صومرني معلول يا باهي يا اباره اي جيران وان صومرني علاده اي جيرين او قف والبابين كعاوه nabad waagam kuugu bari karaa oo islaha waa aan soo marnay hadda u dambeeyay fatahaado iyo biyo iyo daadad aan ka soo gudub aan soo marnay maalin walba meeran soo mareynay waa aan soo marnay magaalada Muqdisho laamiyadeeda dhufaysa ka dhax qodan yihiin oo cadawga aan magaalada Muqdisho iyo xaafadaha iyo madaxtooyada agaarkeeda aan kula dirireyno dhammaan caawana Muqdisho waxaan kula dirireynaa meel 100 kiiloomitir u jirto ayaan shabaabkii aan kula dirireynaa intaana wiil Soomaaliyeed iyo gabar Soomaaliyeed u baageeyay oo inta riixay dhulka marka qiimahaas leh dalka iyo dawladnimada iyo sharafta iyo karaamada ummadeed ee wiilashaas geesiyaasha ay naftooda u hureen si ay sharafta iyo ciziga ummadda ay leedahay ay kor u ahaato oo dadka Soomaaliyeed ayaga oo madaxooda u kor yahay ay ummadaha caalamka wax u wadaagaan dadkaas qiimaha badan leh oo sarkaalka hadda aan magac dhabeynay oo kamid yahay ayaa ka soo baxay iyo kuwii waligood ka sii horeeyay ee dhiigooda ku bixiyay caawa maanta waxay taagan tahay dhulkii noocaas ahay in cadow uu yiraahdo intaanaan qaadanaya mid Soomaali ah oo ama uun damac adduunyaha u geeyo ama garaad yaraha u geyseen uu yiraahdo intaanaan bixinayna dhaqan caalamku yaqaana maaha dhaqan ummadda Soomaaliyeed ay ayadoo intaan ka liidata ama ka qadiimsan ama ka horumar yar ama ka faham yar ay soo ogolaateen maana way soo diiday tallaabada iyo hadalka ka soo yeeray
وحلو يري إسفهم كي كود جنوري مقالة أديس أبابا لغو صحيح حل يري دولة الصوماليات يددك الصوماليات وحيو أركان دولمات لغو سو دولي دلك الصوماليا ليران كما يرى يان مقعي اللو يلي يان معنى اللو يلي دلك جمهورية فدرالك الصوماليا لغو سو دولي jiritaanka iyo qabka qofka Soomaaliga ah meel kasta oo caalamka kaga nool yahay ayaa lagu soo duulay ma aha dadka Soomaaliyeed ee deegaanka la tilmaamay ku nool ama waqooyiga Soomaaliya ku nool ama koonfurta Soomaaliya ku nool ma aha qofka Soomaaliga ah ee Europe iyo America Minnesota ku nool Stockholm ku nool maxaan ku raadaay Paris ku nool Imaara Dubai ku nool Istanbul ku nool Nairobi ku nool Jigjiga ku nool maxaan ku raadaay meel walba oo shakhsi Soomaali ku nool yahay jooga ayaa lagu soo duulay waana ka jawaabeen maanta meesha ay joogto dadka Soomaalida meel kasta ay joogaan waa ka jawaabeen haddii uu aadan yabaal joogay iyo haddii uu burca joogay iyo haddii uu boorama joogay iyo haddii meel kale oo dhulka Soomaaliya kamid ah ama dadka Soomaalidu meelaha ay ku nool yihiin kamid uu joogay uu ka jawaabay codkooda iyo muuqaalkooda ayagoon qarsoonayn ayay banaanka la yimaadeen sawaxanka iyo qaylada boorama ka baxaysa ee Hargeysa ka baxaysa ee Lughaya ka baxaysaay waxay ka turjumaysaa cunsurka Soomaaliga shakhsiga Soomaaliga meel kasta ku nool yahay caawa dareenkiisa iyo meeshuu joogay ka turjumaysaa waxaan amaanayaa oo bogaadinayaa wiilasha iyo gabdhaha dhalinyarada ah ee qaarkood xabadaha lagu ridayo ee qaarkood la kala eriyayo ee qaarkood xirxiran caawa halka aan taaganahay ee fadhinay aan ka hadlayna qaarkood ay xiran yihiin xurriyadda laga qaaday waxa ay u taagnaayeen oo intaas ay u muteysteen waa dhulka Soomaaliya mitir kamida in aanan muxuu ahay aanu bixin waa amaanayihiin waa ku amaanayna sharaf iyo karaamo iyo cizi ayaynu ku noolaanayaan biri siyaasad ma aha maamul ma aha qabiilaysi iyo reer hebel ma aha gabdhaha waqooyiga Soomaaliya jooga khaasatan magaalada Hargeysa ka hadlaya ee lahaa Xasan Sheekh bixi ma karo dhulka Muusana bixi ma karo mid kale oo biri yimaadana bixi ma karo waa runtood boqolkiiba boqol gabadhaasi waa runteed bixi ma karo anigu Muuse bixina bixi ma karo mid kale oo biri imaan doonana bixi ma karo لأن شرع أنجو أن جوجين أي أدول كان لصق دنتور لصق دافعي أول الديدي إن لبحيه قرني كويل عطانا نجم السرود دولة إثيوبيا يدت كرر إثيوبيا دمان وحلا هكوكت سومنا ما دعيسو ما دعيسو دول Soomaaliyeed oo xor ah maanta inuu xornimadiisa waayo ma dacayso ciidan leenahay biyahan leenahay duulimaad kuma ahin dal kale iyo dad kale ciidooda iyo dhulkooda kama gorgortamayno kama macaamilayno kama heshiin karno taa ka dhulka Soomaaliya kamid ah waxaan leeyahay marka ha ku kadsoomina reer Itoobiya madax iyo shacab iyo cid walba hadaad tihiin ha ku kadsoomina kuwa oo Itoobiya inay ku kaalmeynayaan u qabo oo maxaan ku yiraahdaa ama gabanayo le Soomaaliya laba biri waaye waa iska aamusi doontaa dadka Soomaalidu waa iska ilooshiye dhow yihiin way iska war waxaan ilowna dhulka mid maaha dhulka kamid maaha waxaan ilowno wax badan aan ilowna dulqaadaan leenahay samiraan qabnaa
محبة إجعالك ومضاها أدونك ودما جعلنا هاي لكن وحين لا يالوا إلونا وحبدنا أنا لا يالي dadka Soomaaliyeed dulqaad ayay leeyihiin dulqaadku sadayuusnimo ma aha dhulka qaaraan qaadanayaa ee adiguna raalli ka noqo waa dayuusnimo taariikhna uma lihin dayuusnimo iyo dulinimo iyo doqonnimo taariikh uma lihin Soomaali haddaan nahay meel kastoo aan joogno dalka Ethiopia derisaan nahay ismaanaan dooran waa laga yaabaa hadii la weydiin lahayd Soomaalidu deris mid la noqonaysa hadii la dhihi lahayd maya inay dheelaayeen annaga waana laga yaabaa Ethiopia deris mid la noqonay hadii maya inaan dheelay laakiin maanta ma joogo derisaan nahay deriskana wax badan ka dhaxay dadka reer xamarka maxay ku maamaahi jireen balaayadaada qofkii rabo yaa boodkaaga qoryeystaa kuwalana maxay dhijaan balaayadaada qofkii rabo digaaggaaga iga cisho ku dhaca qof digaag inta mooreeyo meel ku hayn karo ku cisho kara miyaa jira balaayadeena qofkii rabo dhulkiinaan rabnaa soo dhahaa balaayadeena qofkii rabo dhulkiinaan rabnaa soo dhahaa dhulka naga laga leexdo war caalamkow ma sii kartiin ma waxay kartiin kuwa laga sheegay ciidan badan Ethiopia u dhisayna kuwa laga sheegay waa maal gelinayna annaga dhisayna magaciisi kuwa aamusano isla Soomaalidu bariishada intaba waxaan leenahay ku kadsoomina Ethiopia waxaan leenahay shacab iyo dawladba derisaan nahay deris wanaagan diyaar la nahay واديدنا dalkana inkii duusiye rabo waadiidnay taasi waa xigmad weyn aad iyo aad weyn waxaan rabaa markaa inaan bogaadiyo hambaliyeeyo dadka Soomaaliyeed sida aan sheegay meel kasta jooga Soomaaliya gudaheeda waqooyi iyo koonfur iyo bartamo iyo bari meel walba jooga iyo kuwa dalka dibadiisa jira intaba ee Soomaalida ah ee Soomaalinimada u dhashay waxaan leeyahay dhamaantiin waa idin bogaadinayaa dadaalka aad sameyseen ee shucuurtiina sida u muujiseen waa ku mahadsantihiin wax weyn aad qabateen difaac weyn oo dalka ayaad gasheen kuwa shaqadii waa la idin hayaa isle ee aamusan ama la idin soo gaaray isloow waa la idin soo gaaray shaqadana la idin hayay fadhiga ka kaca dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasto ay joogtana waa ugu baaqaya inay u diyaar garoobaan difaaca dalka waa difaacayna dalkeena waa miinis kasto aan ku difaaci karnaa ku difaacayna cid kasto oo aan la kaashan karnaa la kaashanayna inaan difaacno dalkeena yaana nalagu qasbin albaaba aanan hore u garaaci jirin inaan garaacno yaana lagu qasbin nabadda iyo wanaaga iyo wada jirka iyo diris wanaaga iyo wada noolaanshaha iyo wada horumarka inaan wada horumarno annaga iyo dawladaha deriska nala ahba dhammaan yaan rabnaa wax kasta oo dana ah isku xiran oo ku wada horumari karno ayaan diyaar u nahay inaan qaybteena ka qaadano laakiin yaana la riixin yaana lagu riixin meel aanan rabin inaan aadno yaana lagu riixin albaabo inaan garaacno aanan rabin yaana lagu riixin inaan garaacno qiimi kasta iyo qadarin kasta iyo raadin kasta ayaan ku bixinaynaa dalkeena si aan u difaacno una ilaalino waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed oo aan sheegay waxaan si gaar ugu mahad celinayaa walaalaha xildhibaanada ah ee dalka baarlamaanka dalka Kenya ka tirsan
soomaalida ah ee ayaga oo xuduudda banaankeeda jira muujiyay talada fiican iyo caqli celinta fiicanna bixiyay iyo tusaaleynta caqli galka ah ee adduunyada casriga ah ee qarniga 21aad sida loo dhaqmo ay tahay muujiyay u tilmaamay walaalaheena kale ayagana waa u mahad celinaa si gaar ah ugu mahad celinaya waxaan sidoo kale bogaadintayda ku adkeynayaa dadka walaalaha sidoo kale mas'uuliyiinta ayagoo mas'uuliyad haya oo heybad leh oo magac leh mas'uuliyaddii xag iska dhigay ee yiri anigu tan u hayay ummadda ama ugu dhaartay maaha ama meel dalkii sida lagu yeelay mas'uul ka sii noqon maayo kuwa yirine waa bogaadinayna waan u hambalyeynayna inta kale ee meel kastoo ay joogaan waxaan leenahay war meeshii Soomaaliya iyo Soomaali magaceeda iyo jiritaankeeda iyo karaamadeeda lagu waxyeeleynayo xeradaas ha ka dhex muuqanin sharaf iyo karaamo iyo mas'uuliyad kuma aha inaad xeradaas ka baxdo oo meel nadiif ah ka istaagto ayaa karaamadaada iyo sharaftaada ku jirta waxaan rabaa inaan ugu baaqo maamulka Somaliland waxaan rabaa inaan iraado dadka Soomaaliyeed waxa ay diidan yihiin idinkama qarsoona waad garanaysaan ka daaya dadka inaad ku qasabtaan inay ka tanaasulaan cisiga iyo karaamada ay leeyihiin inay ka tanaasulaan ha ku qasbina dadka caro iyo calooliyow unbaa kasii dhalanaya dadku cabsan maayaan guryahana ku noqon maayaan laana guriga wixii uu ku jiifay oo heybadda iyo sharaftii ahayd ka taabatay ha ka taabanin waxa ka soo haro dhan waxay leeyihiin si looga maarmo dadka karaamadoodii la taabtay yaan lagu sii fogaanin ka laga waantoobo ha laga noqdo Soomaali waa walaalo ama isku maamul iyo astaan iyo hal calam ha hoos joogto ama dhowr calan ha kala joogto Soomaali waa Soomaali Soomaalidayna ku midaysan tahay dhulka Soomaaliya liiraane Soomaalida iskala sideena Soomaaliya yaa leh Soomaaliya leh Soomaalida la midda dalka figure 7 kan dhaxdiisa midda ku nool bas ma ah waa midaas aan sheegay oo North Eastern ku nool oo kilka shanaad ku nool oo Djibouti ku nool oo maxaan ku yiraahdaa Minnesota ku nool oo London ku nool oo meel kasta maxaan ku yiraahdaa caalam kamida ku nool waaye Soomaalida iskale Soomaaliya marka sidaas inaan u wada ognahay waaye waxa muhiimka inta kadib maalin wadna waa sheegay hadan waxaan rabaa inaan ku celiyo ninkii cila dhaamiyay ee la isku soo baxay loo yimid war maxaa dhacay masuul geeli waa la dhacay geeli waa la qaaday ninkii ugu soo horeeyay haye oo geel la qaaday yaa lahay markaas uu yiri ana lahay waa fiiri markaas uu yiri geelaaga waxa qaaday nin guntigaaga arkay marada saad u guntan tahay maradii oo kala raaracdo oo si u guntay oo dhinac uga dhagan yahay gacanta ku hayo arkay markaas uu yiri sidaad u guntan tahay nin arkay ayaa geelaadi qaaday dhulka Soomaaliya lama sheega jirin Soomaaliya sidaan u naalanin arkay ayaa dhulka naga haweysta oo raba inuu qaato دوبك أن حجسنا أن دوبنا سفي عن أن دوبنا سفي عن هذا أن دوبنا لما قاعد شيء سكداية لما سو هوي سنة حتى دول كنجا أما أضياش إني هراء محير هذين أسوأ شيء برجي حرية حماسة دول كلهم ما دول كودا موتجيبا نين دغح طوري عاو ماشي تاغتا دولك وا تغيا دانا دغح لو طور دغحاد u tuuraysid Facebook iyo Twitter ka iyo maxaan ku yiraahdaa TikTok waaye dagaxaaga la maqdaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo kale waxaan leeyahay kuwana waa u diyaarsan yihiin waa ciidamada qarabka sida oo lagu daray ciidamada difaaca bulshada macuusleyda loo yaqaan meel kasta ay joogaan
وقوة ديارسن وعاوة laga yaabo iyadoo roob da'ayo in ay geed hoos ku jiraan cadow qaadayaan ilaalinayaan inteen kuwa banaanka taagan oo boorarka habeen walba shidayo oo banaanka la taagan oo la garaacayo la eriyayo qaarkood la xirxiray kuwa dhiirada idaacadaha inta soo istaagay waxa dhabta meesha jira inta sheega ayagana la xiray waxa soo dhan marka la isku soo daro dadkeena iyo dhalinyaradeena nisba yar yihiin dhalinyarada inta soo hartee magagalahow faraha badanow waxaan idin leeyahay maantii la kala hariyo guryaha la joogay maaha loo diyaar garoobo difaaca dalka u soo istaaga ka soo baxa guryaha cadaysta mowqifkiina waxa aad qalbiga ka wada jeceshiin oo qalbiga ka rabtaan oo ogahay ku qowla banaanka la imaada meel kasto aad joogtaan haddii loo baahdana inaad naftiina u hurtaan u diyaar garooba Soomaaliya maalintay dadka dhalinyaradeeda u baahneed oo loo hiili lahay Soomaaliya ayay joogtaa maanta ilaahay idinkiis waxaan leenahay waa intaas sharwadayaal maahin dagaal oogayaal maahin xuma ka shaqays maahin laakiin dayuusin maahin umad jirto taariikh lahaana umad jirto oo taariikh lahaana waxaan rabaa dadkaas dowladda Itoobiya shacabka Itoobiya shacab fiican waay dacwada uma qabnay dowladda Itoobiya waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed dagaalka xaqiisa u riixina loogama libkeeno weligeedna loogama libkeeni dagaal iyo colaad xaggeed yaan loo riixin dadka Soomaaliyeed ee nabadda iyo wanaaga iyo diris wanaaga ay rabaan ay diyaar ku yihiin hal gula macaamilo saasaan leenahay mar kale ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waa bogaadinayaa waana dhiirigelinayaa waana maxaa u hambaliyaynayaa kuwoodii soo baxay inta dhimanna ha soo baxdaan leenahay dalka annaga iska leh dadkiisi maanta joogo annaga waana loo soo ilaaliyay shalay annagoon joogine annagana waxaan u ilaalinaynaa kuwa iman doona berri waa u ilaalinaynaa maantaan u dhimanaynaa siday ugu intifaacaan berri haddii alla yidhaahdo xildhibaanada sharafta lena waxaan leeyahay maanta waxaan u baahannahay ujeeddo midaysan inaan leenahay ujeeddo midaysan inaan leenahay u baahannahay hay-adaha dowladda dhexdooda inaan ujeeddo midaysan ku leenahay shacabka iyo dariiqana inaan ujeeddo midaysan ku leenahay wax kastoo aan isu qabno dib aan u dhiganno unity of purpose ujeeddo midaysana maanta aan leenahay ujeeddo midaysan aan leenahay waana midaas midda maantana tamata bixinaysa midda maanta karaamada ayna ilaalinayso inaan kala dadka qaarkiisna waa dadkii sharafta lahaydna la yidhaha kuwa qaarkoodna waa kuwa duligana la yidhaha suurtagal maaha Soomaali ummad qowmiyad sharaf leh oo mudanay wada naqanay ama qowmiyad dulaysanay naqanay laakiin baraa sharaf leh barna sharaf ma laha ma dhacayso horena uma soo dhicin waxaana anfacaya inaan sharaf wada leenahay waaye waana wada lahaan jirnay waana wada leenahay caawa aan joognahay sharafta nagama dhicin waa wada leenahay aan ilaashano aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi